wararka naga soo gaaraya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in wali dagaal culus oo ka socda bartamaha magaaladaasi kaasi oo u dhaxeeya ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo waliba ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo isku dhinaca dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in daqiiqad ka hor uu ka bilowday jihada bari ee magaalada halkaasi oo ay xarun ka lahaayeen ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca wararka soo baxay ayaa sidoo kale sheegaya in qasaare lixaad leh oo dhimasho dhaawac ah uu ka dhashay dagaalkii maanta haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira wariye Cabduqaadir oo kamid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada Guriceel Cabduqaadir haddii aad maqasho ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa marka hore dagaaladii maanta dhacay iyo waliba xaalka iminka siduu yahay magaalada maanta inta badan dagaal ka dhacay qaybaha ku kooban tahay waliba stationka iyo dhanka waqooyi oo ciidamada Ahlus Sunna xalay ay uga waabariisteen laakiin ciidamo ka tirsan dawladda oo iyana qaybo ka tirsan magaalada joogay ayay sababtay in gurmad dambe u yimid waqtigan aan kula hadlayno inta badan hal jihal isugu geeyay gaar ahaan xaruntii dariska u ahayd ciidamada Ahlus Sunna jaamacadda dhanka bari halkaa oo hadda xabadu ay ka dhacayso dad badan ayaa dhintay oo labada dhinaca oo dawladda u bixisay sidoo kale waxaa jira dad kale oo shacab iyana dhintay magaalada inkastoo weli laga kala maqan yahay xaaladdu weli way cakiran tahay lama sheegi karo natiijada rasmiga ah inkastoo hadda hal dhinac keliya xabadda kusoo aroortay waayahay marka Cabduqaadir ilaa iminka ma la ogyahay qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkii maanta dhacay weli si rasmi ah looma ogaan karo iyo sarfal rasmi ah la samayn karo ma jirto way jiraan meydad hadda magaalada qaar meelihii saaka xilliyada hore dagaalku ka dhacay shacabku ay ku arkeen laakiin si rasmi ah sarfal rasmi ah laga bixin karo dagaalkii saaka ilaa hadda waqtiga soo gaaray dadku dhintay ma jiro siyaabo kala duwan loo hadalhayaa warar kala duwan way soo baxayaan oo sheegaya in Ahlus Sunna ay magaalada ka baxday qaar kalena waxay leeyihiin wali gudaha ku sugan yihiin markaad noo sawirto xaalka magaaladu waa sidee Ahlus Sunna ma bixin gudaha magaalada dhanka bari gaar ahaan xaruntooda dariska ee jaamacadda oo ay xisku ugu dambeeyay ku jiraan welina hadda xabadda ugu kululaa ka socota dowladda xabadda uga socota oo ciidamo badan ayaa isugu tagi xaalkuna weli wuu adag yahay ma jiro Ahlus Sunna inay ka baxday magaalada waayahay markaa dadka u sawirta marka dhanka rasaasta iminka ka socoto ama dagaalka uu ka socdo xooggiisa waa halkee wuxuu ka socdaa sidaan hore buu kuugu sheegay xaruntii dariska Ahlus Sunna meeshii xarunta jaamacadaha waana dhanka bari ee magaalada oo dufeedkii dariska uu ahaa xabadda ugu kulunaysa hadda ay ka socotaysaa maadaama magaalada Cabduqaadir aad ku sugan tahay waxaa jirta warar soo baxay oo sheegay in waan ay socoto iyo xabad joojin iyo waliba Ahlus Sunna gaar ahaan Sheekh Maxamed Shaakir inay dalbadeen in muddo 2 saac la siiyo warkaasi wax xoog ama ka hesheen jiritaankiisa iyo waxa ka jira markaas lama xaqiijin karo haddii xabad joojin jirtay iyo Sheekh Maxamed Shaakir ama Ahlus Sunna ay soo dhiibayaan xabad hadda dhacaysa ma dhacaan 2 saac la sheegayaan marka laga soo gudbay kulli waxay u egtahay weli in dagaalkii uu socdo ay si jirin wax xabad joojina iyo xabad istaag waayahay ugu dambeyntii xaaladda iminka aad ila hadlayso waa sidee jawiga maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda weli lagama hadli karo waa mid dagaal waa mid shacab ku bilaabatay magaaladu shacabkiina way ka maqan yihiin waxay kusoo adweeri doonto ama ay noqon doonto inay kusoo ilaasana lama ogo laakiin hal meel oo dagaalka xooggiisa hadda si fiican uga socda welina labada dhinac isku haystaan unbay maraysaa aad baad u mahadsantahay Cabduqaadir